shirkan wada tashiga ah ee maanta hotel wardheer ee magaalada Muqdisho ay ku yeesheen beelaha Qubays ayaa waxa gogasha dhigay beesha Qubaysla waxaana looga tashanayay midnimada wadajirka iyo wax wada qaybsiga beelaha Qubays. Shirka waxa goobjoog ka ahaa dhamaan beelaha Qubays ee deegaanada kala duwan ee dalka iyadoo sidoo kale ay joogeen beesha reer Axmed Faarax oo dhankooda tabasho ka qabay kursiga xildhibaan ee golaha shacabka ee Hirshabelle yaala. odayaasha madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si siman loo qaybsado kursiga xildhibaan ee golaha shacabka ee sumadiisu tahay hoob eber 8 ee beesha Qubays ay yaala Hirshabelle. odayaasha beesha Faq Cumar oo hadda ku fadhiya kursiga beesha Qubays ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay walaalahooda Qubays ay wax la qaybsadaan. Nabadoon Axmed Sheekh Cabdullaahi oo ka ahaa shirka ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha looga hadlay. magacayga Axmed Sheekh Cabdullaahi weeye xogo la fuugunaynaasoo adeerayaal meeshan maanta waxa ka dhacay shir ballaaran oo 4 Qubays oo tulweynaha iyo yabadal iyo ay isku yimaadeen waxaan cadeynaynaa marka waa waxba naga dhaxeeya waxa naga dhaxeeya xildhibaanna naga dhaxeeya waxa naga dhaxeeya tala guud oo toleed waxa naga dhaxeeya wixii wanaag oo tol wax qayb baa naga dhaxaysa waxaanad moodaa wax qaybtii naga dhaxaysay inaanan isku ogolayn xoogaa nimo walaalaheen oo Faq Cumar la yiraahdo baa xoogaa isxijiyay wax qaybtii naga dhaxaysay waxaan leenahay marka oo aan cadeynaynaa waa inay walaalka wax u ogolaadaan ayagu wax isku ogolaadaan annaga wax noo ogolaadaan walaalka qaylinaya oo ilaahay dankiisa Qubays ah iyo nimanka la yiraahdo reer Faarax Barkaan ama la yiraahdo Axmed Faarax labadaan qolaaq qaylinaysa waa in loo ogolaadaa xaqooda waa in la siiyaa waa in walaalku isku dhimriyaa waa in ilaahay dankiisa walaalku isjeclaadaa waa Sooriyaan lagu kala tagin waxaanu waxa weeye nasab Soori waa tagtaa sokeeyana waa hara wariyaan soorta la israacsiine sokeeyaha warkiisa iyo xaqiisa waa in la ogolaadaa waxaan ku soo gabagabaynayaa war walaalayaal wax isku ogolaada oo wax noo ogolaada oo walaalka wax isbisadayo walaalkii wax u ogolaada sidaasaan leenahay shir ballaarana meeshan ka dhacay walaalku waa inuu isku dhimriyaa waa inuu isjeclaadaa waa inuu istixgeliyaa waa in nimankan xaqooda loo ogolaada insha Allah taala tawfiiqdana Allahna waafajiyo sidaasaan leenahay haddii wax la isku ogolaado haddii nin walba xaqiisu helaya haddii wax la isku ogolaana haddii waa la kala tagayaa kala tagana israaca ka fiican iyo walaalnimada hal la xusiisto nacfigo iyo maalintaas waxa la quudanayayna kala geyn ee nasabnimada iyo dhalashada iyo walaalnimada hal loo dhimriyo hal la raaco. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank